kulanti waxaan u wanaagsan dhammaan akhyaarta hawada ee naga daawanaysa idilkiinba ku soo dhawaada barnaamij aan kaga hadli doono caqabada gaar ahaan siyaasiyiinta caqabada ku ah in Soomaaliya dawladda ay yeelato kuwaasoo qaarkood Soomaalida hortaagan muddo 15 sano ah meesan ku imaanin aqoon lamana dhihi karo waxa dagaal oogi oo waxay ku yimaadeen qori laakiin waxay ku yimaadeen cilmi ama sixir iyo waliba cilmi falag Soomaalida waxay u taqaan hada barnaamijka arimahaas ayaan ku eegi doonaa hadduu Allah awood leh u saamaxo hada barnaamijkan waxa qaybtiisa koobaad aan ku bilaabeynaa Shariif Xasan Sheekh Aadan wuxuu siyaasadda Soomaaliya uu ku guda jiraa in ka badan 15 sano waa gudoomiyihii baarlamaanka dawladdii lagu soo dhisay in Bakaadi ee madaxweynaha uu ka ahaa Cabdullaahi Yuusuf Axmed waxaana barnaamijka ku daawan doontaan arimo cajiib ah Shariif Xasan Sheekh Aadan muddo dhowr mar ah wuxuu noqday gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya kadib wuxuu u wareegay Koonfur Galbeed ama maamulka Koonfur Galbeed oo hadda madaxweyne uu ka yahay waana caqabada ugu weyn ee haysata dawladnimada Soomaaliya waa saaxiibka koobaad ee dawladaha Itoobiya iyo Kenya Shariif Xasan ma haysto shahaado dugsi hoose ah iska badaa dugsi sare laakiin wuxuu ku joogaa cilmi kale waxa sheegaysan suuqay wadayaalan kulli wala soo wada galab ana diidi barnaamij xujja ka dhigo haysan laakiin meesha ku furtaan isku barnaamij lagu dubnaa wallahi ka wiilasha hal baawar gareeleedana hal baawar gareel aad tireen kaga shaqeeyay aniga ana dhaw hal baawar gareel barka waxa soo tiin wada si loo baawar gareel askar Shariif Xasan wuxuu baarlamaanka Soomaaliya uu ku leeyahay ku dhawaad 70 xildhibaan oo asika amar qaata intooda badanna isku qaab ay yihiin oo aanu haysanin shahaadada dugsiga hoose laakiin ka amar qaata Shariif Xasan waxaana siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo waliba qaybo kala duwan oo bulshada ay sheegeen in caqabada koobaad ee hortaagan jiritaanka dawladnimo ee Soomaaliya in uu yahay Shariif Xasan oo Soomaalida ay u bixisay Shariif Sakiin haddaba Shariif Xasan qaab aankay ayuu u hortaagan yahay dawladnimada Soomaaliya qofkii ka hor yimaada ama madaxda markaas dalka maamusha haday ka hor timaado wuxuu isku dayaa in madaxdaasi uu kala tuuro ama uu ka saaro saaxadda siyaasadda asoo adeegsanaya cilmiga sixirka ama sameynaya galaangal kale oo siyaasadeed in ka badan 15 sano waa hogaamiye soo taagan Shariif Xasan asaate Shariifku kaligiis haduu aan lahaa waxbay ahaan lahayd Shariif Xasan wiil uu dhalay waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya walaalkiis ku hooyo ah waa safiir wiil abti uu yahay waa kusimaha taliyaha nabad sugidda Soomaaliya wasiirka gaashaandhigga ee hadda la magacaabay dhawaanay Soomaaliya habareertiis ayaa dhashay wasiirka gaashaandhigga ee hadda jooga kii ka horeeyay oo iscasilayna abtigiis ayaa dhalay waana waxa la yaab kale dadka ku dhaqan Koonfur Galbeed ama gobolada Bay iyo Bakool waxa afka u dhigtay Shariif Xasan Sheekh Aadan dawladaha Itoobiya iyo Kenya wax walba ay amraan waa mid fuliya una nugul suusan kaga bixin siyaasadda Soomaaliya Usmaan Xasan Cali Caato Allah u naxariistay waa xildhibaan hore ka tirsanaa baarlamaankii dawladdii Soomaaliya wuxuuna ahaa siyaasi caan ah Usmaan Caato oo hadlay wuxuu sheegay in caqabada Soomaaliya haysato inay tahay Shariif Xasan Sheekh Aadan waxaana xilligaas Usmaan uu sheegay Allah u naxariistay in Shariif Xasan uu hortaagan yahay jiritaanka ummadda Soomaaliyeed dawladda doonaysay waa la diiday annaga xildhibaanada ay dawladdan doonaynay waa la diiday waxaana diiday Ugaandhees iyo najisnadalay oo magac Soomaaliyeed sheeganaya iyo miyiga dalka waa la haystaa ee tashada kana tashada una tashada in aad iska dhicino oo aan iska dhicino nimanka la yiraahdo shisheeyaha inoo yimid iyo kuwa Soomaalida ah ee shisheeyaha u shaqaynaya ee uu Shariifna maahane gudoomiyaha baarlamaanka tuugaahi uu madax ka yahay Shariif Xasan leeyahay
madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed Allah u naxariistay mar uu hadlay wuxuu sheegay in dhibaatada ugu weyn ee Soomaaliya haysata inay tahay ama inuu yahay Shariif Xasan Sheekh Aadan waa shakhsiga naqday 3 mar gudoomiye baarlamaan haddana ah madaxweynaha koonfur galbeed ee Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo la wareystay ayaa yiri dhibaatada ugu weyn ee Soomaalidu haysato ayna tahay inay iska qabtaan waa Shariif Xasan Sheekh Aadan laakiin ma aha Soomaalidu dad bisil isna weydiiyo Shariif Xasan waxa uu u soo taagan yahay una dhici laayahay deegaanada Shariif Xasan uu ka soo baxo ee koonfur galbeed waxay lahaayeen 3 siyaasiyiin oo rugcada ah Allah u naxariistay Shaadi Guduud xabsado dhintay Allah u naxariisto Sheekh Aadan Madow maanta jooga waxaana Shariif Xasan ka dabalaaci jiray Sheekh Aadan Madoobe laakiin lama arko Sheekh Aadan Madoobe waxaana dadku qaarkood ay sheegayaan in Sheekh Aadan Madoobe indhaha la qabtay waxa la yaab kale waxay tahay in dawlad walba oo Soomaaliya ka dhalata uu isku dayo in majaha uu qabto siyaasiyiintii asiga la midka ahaana mar hore ama kol hore ayay saaxada siyaasaddu ay ka baxeen Shariif Xasan beeska ugu weyn ee Itoobiya ama ciidamada Itoobiya wuxuu ka furay magaalada Baydhabo waana yes man jecel inuusan ka dhax bixin siyaasadda Soomaaliya gaaraha uu ku leeyahay qaaradda Yurub iyo Mareykankana lama xisaabi karo wuxuuna daarahaas uu ku dhistay hantida Soomaaliya baarlamaanka koonfur galbeed kol walba way qayliyaan si ay u ceeriyaan Shariif Xasan laakiin ma aha shakhsi la loodin karo ayaan ka rabnaa ma jirto meel isku faaro ma jirto waxaan joognaa meel isku duubnaasho u baahan joognaa waxaan ogsoonahay amniga awgiisa gaarigii magaalada Muqdisho ka baxo inuusan gaari karin magaalada Baydhabo amni darro awgeeda maamulka koonfur galbeed intaadan xildhibaan ka noqdo ka hor waa jirtay haddana waa jiri doontaa waqti ilaahay kugu talagalay u badhamanaysaa waan isla qaadanay arrintaas insha Allah ilaahay idinkiisa مسؤولك كونفور galbeed ku nagaan waay magaalada Baydhabo oo xafiiskiisu u noqday diyaaradda dusheeda waxaan rabnaa inaan meesha ka wareejino sidaan hore idinku sheegayna xildhibaanada koonfur galbeed waxay dooran doonaan mid ka wanaagsan hoggaanka hadda jiro